madaxweynaha Tanzania Johan ayaa xilli uu khudbad ka jeedinayay kaniisad ku taala Chato ee waqooyiga galbeed ee Tanzania maalinimadii Axadda ahayd sheegay in wakiilkiisu uu ka bogsaday COVID-19 kadib markii uu isticmaalay liin iyo sanjabiil sameeyay jimicsi badan balse ma jirto cadeymo sheegay inay tani tahay daawada coronavirus sida ay sheegtay dhakhaatiirtu. madaxweynaha dalkaasi Tanzania Johan ayaa isla halkaasi ka sheegay tirada kiisaska cudurka corona ee dalkiisa inay hoos u dhacday kadib markay qaateen ama mirta ka soo baxaysa wasaaradda horumarinta caafimaadka. madaxweynaha ayaa sidoo kale shaaciyay in iskuulada iyo jaamacadaha dib loo furi doono isbuuca soo socda. wuxuu sidoo kalena ka hadlay qorshaha ay dawladdu ku qafifin karto karantiinka dadka soo galaya dalkiisa. dalka Tanzania kama jirto tallaabooyin adag amaba saaraya xayiraada sida dalalka kale. Tanzania waxaa laga diiwaangeliyay 509 kiis halka ay cudurka corona u dhinteen dad gaaraya 29 qof. waa Xamse Dabaare, telefishinka Star.